الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شاك أرسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليلا حروف رده من تنبلا قليلا حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلاه إذا صح فإبداله من همزة هاء أصلها وقد قال بعض الناس من واو ابدلاه وقد قال بعض الناس من واو وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم ومن يظهر فبالماد عللا ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على الماد عولا ولا فرق ينجي من على الماد عولا وقبل يئسن الياء في اللاء عارضون سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا يئسن الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلا فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلا وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا كيرزقكم وثاكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا وميثاقكم أظهر ونرزقك انجل وإدغام ذي التحريم ضلا كنا قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا ذي التحريق الضلاق كنا قل أحق وبالتأنيث والجمع
أحق بالتأنيث والجمع أثقلا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا waxaan soo haynay idqaamulkabiir ayaan soo haynay oo fii kalimatin ah iyo fii kalimatin baan soo hayno fii kalimatayn fii kalimatin waa ka soo baxanayo manaasikkum iyo maa salakakum labadaas bis ay ahaayeen kalimataynka idqaamulkabiir almutamaathilayn oo fii kalimatayn ayaan soo haynay wamaa kaana min mihlayn fii kiltayhima kilmatayhima falaa budda min idqaami maa kaana awalan ayaan soo haynay marka waxaan soo sheegnay saddex kalimo oo khilaaf ku jiro idqaam idhaarba wa cindahum alwajhaani fi kulli mawdicin tasamma liajli alxadfi fiihi mucallala kayabqi majzuuban wa in yaku kaadiban wayakhlu lakum can caalimin طayib alkhala saddexda kalimo yabtaqi iyo wa in yaku kaadiban yakhlu lakum wajhu abiikum saddexdaas inuu idqaam idhaarba qabo ayaan soo sheegnay abu camar gaar ahaan suusi marka halkan beedkanna wuxuu noo sheegayaa sheekha raxmatullahi calayh meel aan khilaaf ku jirin kalimaadka aan khilaaf ku jirin buu noo sheegayaa qaala shaykhu raximahullah wayaa qawmi kalimadan wayaa qawmi maaliah wayaa qawmi maaliya adcuukum ila annajaati ثم يا قوم من ويا قوم من ينصرني من الله labadaas ursilaa waa la diray ay udliqaa laa shaka shaki la'aan baa ursilaa la diray cala alidqaami idqaam baa lagu diray bilaa khilaafin khilaaf la'aan kalimaadkaas wayaa qawmi ma laba miim waay wayaa qawmi ma wayaa qawmi ma liya adcuukum laba miim waay iyo wayaa qawmi man laba miim waay waa mutamaahileen oo fii kalimatayn ku kala jiro marka sheekhu wuxuu yidhi kuwaan khilaaf kuma jiro haddii saddexdii hore yabtaqi in yaku in yakhlu ay khilaaf ku jiray oo suusi marna idqaam marna idhaarna kuwan waxa weeyaan biitifaaqin bilaa khilaafin ayuu iskugu idaqaamahayaa oo wuxuu leeyahay wayaa qawm maa liya adcuukum wayaa qawm man yansurunii min allah saasuu dhahaya marka wuxuu u xusay labadan tawahum oo in loo maleeyo sida yabtaqi oo kale maxay labadan ayaga waxba ka xadfan ya qawmi ba ahadiyad xadfan labadaba laakiin xadafka oo yabtaqi ama yaku ama yakhlu ku jira iyo xadafka kan ku jiro isku mid ma kan wax la xadfayo waa damiirkii damiir mutakallimka way oo zaa'idka ahaa kelimada asalkeedu waa baaqi yaa qawmi wey waxa la xadfahayo yawl idaafadi wey yawl idaafadi oo mutakallimka ahaa ayaa la xadfay yaa idaafadana hadee waa kelimo mustaqilla wey luqadda fasiixda ana luqadda carabiga dhowr luqadoodba ku jirtee in la xadfaa yaa fasiixa ah saa darteed marka waxba kama maqana wayaa qawm maa liya adcuukum wayaa qawm man yansurunii suusi saasuu akhrinaya marka wuxuu keenay bushi badan buu keenay dhowr bushiyuu keenay oo quraada qaarkood wuxuu yidhi qaala sheekhu raximahullah waidhaaru qowmin qoom muujintooda aala luutin ay muujiyeen
likownihi aalaluudka ahaashadiisa qaliila xuruufin xuruuftiis mid ay yar tahay ay tahay darteeda ay u idhaariyeen raddahu waxaa radiyey oo diiday hu idhaarkaas man caalim baa diiday tanabala weynaaday caalim oo weyn ayaa diiday ama tanabala caalim oo tanabala dhintay caalim oo culimmada hore ka mida dhintay ayaa diiday waa abu camarka naftiisa abu camr waxa way abu camr ad-daani way abu camr ad-daani wa idhaaru qawmin bur qawmka waa qawmin buyuri sheekha al-mushaadib yani qawm yani min ghayri shuyuukhina bu ku wada shuyuukhdanada aan ahayn qawmkaasna wuxuu ku ishaarahay baa leeyahay يعني أبو بكر بن مجاهد iyo culimo kale oo culimo Baghdadiin oo idqaamka soo guuriyay ayagu waxay yiraahdeen ala luutin idqaamkiisay diideen oo waa la idhaarinaa bay dhaheen meelaan meeshu dhacab way idhaariyeen waxayna ku ciladaysan hayaan xujo ka dhigan hayaan likownihi qaliila xuruufin xuruufti siyar darteed xuruufti siyar ala luutin marka allaamka labada luutin luutin walaqad jaa luutin nudur marka way waxay saasay yiraahdeen waa xuruuftiisa yar bay dhaheen laakiin waa la radiyay waxa hadalka ku diiday raddahu man tanabala birushakh waxa radiyay ku diiday caalim weyn tanabala ay jaliilal qadri caalim qadarkiisa sharafkiisa u weyn yahay diiday waa abu camr ad-daani waana sidaas way sida saxda ah al-imaam shaatibi inuu qabo waxa lagu radiyay inuu sheegi doona waa beedka ku nooga xiga wuxuu yiri wa idhaaru qawmin qawm oo min al-qurra'i kamida way sida Abu Bakr ibn Mujahid iyo rakala oo culimo Baghdadiina qawm idhaarintooda ala luutin kalimadan labadan kalimo ala luutin ay idhaariyeen oo ma la idqaamaya ay dhaheen sababtana ay tahay likowni ala luut kan kalimatu al waan arki doonaa sida xuruufteedu u yartahay sida kale likowni wa shay'isa qaliila xuruufin xuruufti samida yartahay ay tahay darteeda qoom ay u idhaariyeen raddahu waxa diiday oo radiyay hu idhaarkaas man caalimtana bala weynaaday jaliil al-qadri qadarkii sharafkiisu weynay waa huwa abu camr ad-daani waxaana sababtu sawir raddi marka waatan imaam shaatibi saa sheegay wuxuu ku radiyay caalimkaas biidqaami laka kaydan shiditaankiisa laka kaydan wuxuu yiri laka kaydan waa la isku idqaamaa fayakiidu lakayda suuratu yusuf asagaba ala luudan ka xuruf yar maxay laka laba laam kaaf way kaafka hadii kaydan kaafka lagu shido hal laam soo haray kii hore ala laamkiisa hadii luudan lagu shido laba harfaab soo harays ki kan oo ka xuruf yar midkan ka xuruf yar ayaaba lagu shidaa oo la isku waafaqsan yahay marka waa la idqaama al-luutin sida loo idqaamay fayakiidu lakayda labada kaab la isku idqaamay walaw xajja hadduu xujaysto mudhirun mid idhaarinayo quraada ka mid ah hadduu ku xujaysto bicilaali ثاني على لوط بعلال ثاني على لوط كيس لباد إعلالنتيسا إعلال باقالي هدو كو حجيسته إذا صح الإظهار
idhaarkaas hadduu ansaxo oo ku culidaysanayo biiclaali taaniihi lactalaa ma kor noqdeen yacni xujo oo idhaar oo kor noqonahayo sanadkiisa marfuuca ah ma noqonahayo meel dheer ma gaarahayo lactalaa ma kor noqdeen qofku doortay meel kor kama aada macnaa wax kale saas qabo ma jiraan way wax qabo kale ma jiraan marka qaar bay waxay oo quraada ka mid ah ayaa waxay yiraahdeen al-luutin waxaan lasoo idqaamaynin oo loo idhaarinayo ala kalimatu ala xarafkiisa labaad la xarafkiisa labaad oo hamzada ala a'la way moogtay ayaa iclaal galay bay dhaheen iclaal baa galay sa iclaal u galay waka wuxuu hadu ku sheegayaa kayfiyatu iclaalka fa ibdaalu thani ala luutin kiisa labaad xarafkiisa labaad bedelitaankiisa min hamzatin laga soo bedelay min hamzatin buu ahaaday min hamzatin ayuu ahaaday khabar ka dhig fa ibdaalu ala luut bedelitaankiisa min hamzatin kaa'inu min hamzatin hamzuu ahaaday hamzaa laga soo bedelay bay dhaheen asluhaa aslulhamza hamzada asalkeedana haa-un wey waqad qaala wuxuu yidhi bacdunnaasi dadka qaarkood oo quraada waxay dhaheen ubdila waa laga soo bedelay min waaw baa laga soo bedelay aala ayaa laba iclaal loo sheegay laba madhab baa jirta kayfiyatu iclaalka siibweyhi isagu wuxuu leeyahay fa ibdaalu min hamzatin haa-un asluhaa oo aal asalkeeda waxay ahayd ahlun waa naxwahiyaa la galay aal asalkeeda waxay ahayd ahlun ha'dii baa ahlun ahaydba hamzaa loo bedelay a'lun lay noqotay a'lun sa alif loogu bedelo hamzaa loo bedelay fa ibdaaluhu marka ahlunti a'lun markii la yidhi ayaa hamzadii haddana alif loo bedelayo aal baa layidhi ahlun ba ahayd bedel waxa weeyaan ha'dii hamzo u bedel a'lun marka hamze reeban oo fataxa ka horeey fataxa maxaa munaasab u ah alif hamzadii alif u bedel aal saasay ku noqotay aal marka laba hamze maadaama kulmeen tan dambe ayaa waxaa loo bedelay aal alifa loo bedelay aal alimaam alkasaa'i iyo kuwa kale quraada ka mida nuxaadda ka mida waxay leeyihiin waqad qaala bacdu nnaasi min waawin ubdila waxay leeyihiin aal asalkiisu wuxuu ahaa awal bay ahaydoo waawdaa kordhigneed maa qablaheedana waa kordhignaa awal markaasaa waa alif baa loo rogay waawdii awal meeshay ahayd waawdii alif u rog waxa weeyaan waxay noqotay aal bay noqotay marka alimaamu shaatibi marka isaga aal waxaan idqaam ahayn kale ma qabo aal waka marka saasuu kuu leeyahay marka walow xaja mudhirun bicilaali aaniihi aanigi waxa weeye kalimatu aal oo iclaalka la geliyay la celadaayo oo la bedelay waaw baa laga soo bedelay iyo hamzaa laga soo bedelayda labadaas iclaal weeyahay idaa saxa idhaarkaas hadduu aan soo lactala ma kor noqdo iclaalkan waa kana fa ibdaalu haani ala luudkiisa labaad bedelitaankiisa min hamzatin hamzuu ahaaday asalkiisa hamzuu ahaa bay dhaheen hamzo oo a'lun bay ahayd a'lun asluhaa aslulhamza hamzada asalkeedana haa-un bay ahayd oo ahlun buu ahaa kadibaa a'lun layidhi kadibaa aal layidhi marka waqad qaala bacdu nnaasi dadka qaar waxay yidhaahdeen waa imaamulkisaa'i wixii la mid a ubdila waa la bedelay ubdila haanii aala luutin
آل لوط ثاني سوال بدلي من واو ما لقى صوب بدلي أسأل كيس وحو أول بؤها والكاسة آل لو بدلي المهم وحوين آل لوط والإدغامة آل لوط وواو هو المضموم ها أنك هو ومن واو هو مبتدا كدك وواو هو او قرآنك كجرت واو غيده هو ذي هوه المضموم مضاف إليه كصفي وواو هو إلى مضاف إليه هو لفظه هو أو المضموم لقضي هاء من هاء لقضي هو ليد هذه سيقضن طيب أو وهو أهين هو ويهاي هذه سيقضن طيب كهو من يأمر ويه مثال فوتسي كهو من يأمر كاس ويه فيأدغمشت خبرك وهو مبتدأ هذا فأدغمشت فأدغم هو واو كدم بيكشت هو من يأمر له هو من يأمر هو من يأمر مركا واو هو واو غير هو بيوري أما واو يذا كلا كل ما ين ما دا ما شو كاحتراز هيا خذ العفو وأمري ومن الله ومن إياه ساسوكا المضموم ها مركو يري المضموم ها كان هذه سيقضون إلا قضي بيوري كان ريبان با كدوان وهو وليهم وصورة أنعام كجرتيه فهو وليهم اليوم إيه وهو واقع وصورة السورة كجريه كوا أي خلاف ما بكجره بسوسي بلا خلاف وإدغام هياب خلافكم مجرو وهو وليهم فهو وليهم وهو واقع بهم معانا إدغام متمثلين بيسوق لها يعني مركا وحيري المضموم هاء مركا هالي وحو كاستدلون هلكا مركا وحو الشيخ مركا وحو تلمامه هيا وهو أو واو كدم هو ومن يأمر كسوقاته وسدح iyo 10 meelood bay quraan ku soo aroortay suuratu baqara jaawazahu huwa alladheena amanu jaawazahu huwa alladheena wa maqal isku daqama jaawazahu hadis huwa wa man balagusi walladheena balagusi daqama laba daqama isdaba dhacay iyo لا إله إلا هو والملائكة لا إله إلا هو يمسسك كواس وياني وسدحت هون ما لم يكون صورت وحيري قاعدة جود بكل شيء هياي واو هو واو غيره هو المضموم لقضي ها أن من ها إن هان لقضي هو اللي هذه سقطن تاعي كهو ما يأمر إيه وحي لم يدويه هو ما يأمر وحي لم يدا كاسيو لم يتمكن كلا أو قرآن كسورت سدحت وانا سكون قنا يعني كهو من يأمر فأدغمشت واوغاس واو قدم بيكشت هو من يأمر له ومن يظهر قفك إظهاريه على إظهاريه واوغاس أن واو كدم بيكشدين علل واعل لذي بالمد بكوع لذي قارب مركا قرادة كمدة أيا إظهارنا هو واوغيس واو كلا كدم بيكشدين وحنكو إلا لنا ومد با كسغن بيراد maxay la waawda markii la sheedahayo in la reebo way waawda waawda wala reebay hadeeno waawda wala reebay waaw kale ayaa loo idqaamay lama ka laba waaw ba kulmeen marka hadii waawga la reebo godna ka horeeyo
haddii huwa ma yamur haddii haaday godan tahay hu waawgiisana aad reebto oo ilaa xarabta wama yamur waaw kale inaad ku shidaa rabtaaye waaw reeban god ka horreey muxuu noqday waa mad buu noqday soo ma xarfulmad buu isku bedelay xarfulmadin waa leenin xarfulmadna laa yudqamu bilijmaaci xarfulmadna maba ijmaac sida quraada isku waafaqeen maba la idqaam maba la shadaba maxaa idqaamka wuxuu keenayaa in madkii uu baaba'o sida qaaluu wa aqbaluu iyo aamanuu wa kaanuu iyo sida maartay yani fii yawmayn oo kale fii yawmayn labada yaa oo kale fii yawmayn alladii yuwaswisu marka saa darteed waxay yidhahdeen maba la idqaamay laakiin wuxuu uga jawaabay fiiri sheekha horey uga jawaabay oo tacliilkaas oo madka lagu tacliiliyey ayuu buriyey sheekha wuxuu yidhi وأدغموا قرآن واي إدغامين يأتي يوم باي إدغامين أدغموه وإدغامين هو يأتي يوم إي ونحوه إنت لمده ولا فرق وحا دحي مجرو دحي مجرو ولا فرق مجرو فرق غاسو ينجي بدبادينا يمن قف عوالا كتيرسي على المد مد كتيرسي مد كدرتي سان إظهارنا ننكيري وكان بو إدغامي إي وحي لمده فرق ما هيبر فرقيا وحوحى الإدغامي من قبل أن يأتي يوم يأتي أو في يوم الوشد من قبل أن يأتي يوم وهذا سكوت إدغامه يوحي لم يدع عين كاسة يوم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له ينودي يا موسى marka qolada marka oo huwa waawgeeda waa la idhaaranaa leh kaasna inay idhaariyaan baa laga rabay illa waxa weeyaan ama in labadooda wada idqaamo ama labada la idhaariyo way wax farqi ah oo huwa oo madmuumha iyo yaati yawm wax farqi ah oo u dhaxay male maadaama min ay yaati yawm la isku idqaamahayo hadee huwa ma yamur wala isku idqaama wax farqi u dhaxay male midaan kaliya ma loo ciladayna buu leeyahay saadarteed marka labada waa la idqaama sida sax wuxuu wa huwa al-madmum ha anka huwa man fadghim wa man yudhhir qafka idhaari allala fa'allala wa alladhaystay ciladu ka dhigtay bil mad wa ya'ti yawmun adghamuda damir ishtiqaal ba galay adghamu qurada way idqaaminayo isku waafaqsan يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم يأتي يأذي يوم كو إدغامن أدغموه وإدغامن إيه ونحو وحي لمذا كان إيه وحي لمذا نودي يا موسى وكال ونحو ونودي يا موسى ولا فرق أدحي ماله فرق أسو ينجي بدبادين هيو أما كالدو هيو من فلا فرق من ينجي بدبادين من قارئ عولا كتير سي على المد مد قفك كتير سي مد كدرتي صرف مد حرف مد بنقضي ماشي ساسا وإظهارنا نكيري ومد كتير سي وح بدبادين هيو لبضا أكل الدوا هيو ملوي لبضا والي دغامة مرك وسوسي بان هينا وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا أو وصلا فهو يظهر مسهلا وقبل يئسنا الياء ده مبتدا كده الياء ياء وفي اللاء في كلمة اللاء ياء ذا كجرته لا إي لدهيو همزة كدب ياء ذا عارض واي كي سودر سيوي قبل يئسنا حال كوني يأغاس حال ويه قبل يئسنا كهر ويه والله يئسنا وي عارض من سودر سوي أصل معه وحون عارض ويه سكونا من سكون حق ريبتنكيس عارض أو أصلا أما أصلها بو عارض ويه هيبا يأغاس فهو أبو عمر مركا أو سوسي ويه يظهر وإظهاريا لا إي يئسنا لا إي يأذي يئسنا يأذي كمشيد هيو
mushilan xaaluu yahay kii fududaynahayo tashiil mushila ayuu ka dhigahayaa waxaa weeyaan wuxuu meeshan uga hadlahayaa suuratu dalaaq wallaa'i ya'isna taasuu uga hadlahayaa marka wuxuu yidhi waa wallaa'i ya'isna ya-da way reeban tahay ya'isna daba dhacday ma la isku idqaamahayo waa abu camar laa'i ya'isna tashiil buu akrinaya oo bilaa khilaaf wey saasaana sahlan buu leeyahay wuxuuna ku ciladeeyey sukuunan aw aslan caaridun waybir caaridnimada marka ayuu wuxuu ku cidleeyey yani sukuunulyaa ayaa caarid ah ya-da la reebhayo laa'iida reebtinka la reebhayaaba caarid ah laa'i waay ama caarid weeyo asal ahaan bay caarid u tahayba hamse maksuura oo bacda yaa isaakina oo waxa weeyaan marka waxa weeyaan waa la xadfay bil sida raami oo kale ramaa raamin gazaa gaazin marka hamzadiiba yaa maksuura oo maarta yaa laga soo bedelay laayi bay ahayd laayi marka saa darteed waxa weeyaan ya-daas reeban iyo xarakada ka horreysa adiga waxa weeyaan laba waxaa kulmay laba saakin baa meesha kulmay marka waa la fududeeyey saa darteed marka waa idhaarinaya isaga wuxuu leeyahay qaala imaamu shaatibi mar kalen ku soo celiyey alyaau ya qabla alyaau ya oo fi laa'i wallaa'i ya-deeda caaridun waay qabla ya-isna xaalay tahay sukuunan reebtan ahaanay caarid u tahay markii ya-da oo laa'i hamsadeeda markii ya loo bedelo laayi aw aslan ama asal ahaan bay caarid u tahay fa huwa abu camar yudhiru wuu muujinahayaa mushilan xaal uu yahay isagoo dariiq sahlan marahay wallaahi ya'isna suuratulxasaabna waa inooga imaan doontaa insha allah ayadoo saan ka faahfaahsan waa middan ya'isna weeye amaam kuwa kale waa inoo imaan doonaa ayadiga taa halkaasaa uu gudubnay ninkii naxwaha fahmaaya baas si fiican u fahmaya baabu idqaamulxarfayni laba xaraf shiditaankooda baabkiisu weeye almutaqaaribayni oo isku dhowaaday xagga makhrajka iyo sifada fii kalimatinna iskula jiro hal kalimo wa fii kalimatayn laba kalimo ku kala jiro baabkii hore wuxuu ahaa idqaamulxarfayn mutamaahilayn buu ahaa fii kalimatin wa fii kalimatayn kanna idqaam waxaa mutaqaaribayn wa ilaa idqaamulkabiirka saan hore usoo sheegnay ayuu mutamaahilayn iyo mutaqaaribaynba u kala baxaa mutamaahilayn waan ka soo baxana mutaqaaribayn baan gelaynaa qaala shaykhu raximahullah wain kilmatun xarfaani fiiha taqaarabaa wain xarfaani xarfa waqaca taqaarabaa hadday isku dhowaadaan kilmatun kelimo ama wain kilmatun kelimo sideeda iskaga dheh wain kilmatun ama wain taqaaraba dhowr icraab way wain taqaarabaa xarfaan wain xarfaani dheh wain xarfaani taqaarabaa hadday isku dhowaadaan kilmatun fii kilmatin kelimo dhexdeeda fa idqaamuhu idqaamu abu camar shiditaankiisa lilqaafi qaafku u sugnaaday filkaafi ku shidahayo mujtala xaal uu yahay kii la caddeeyey laba xaraf haddii kelimo laga helo abu camar qaafkii kaafku isku shidaa bas
حرفان متحركتان متقارب في المخرج مركز سوسي أبو عمر قاف كأيو كاف كل عشداي مثال كان ونو شيء دونك يرزقكم يواثقكم وخلقكم وي يرزقكم وقال يرزقكم قاف كاف وكل مي هل كلمة يرزقكم يسكو لتشران واسكو شدا يرزقكم ساسودا وإن كلمة وإن تقارب وإن حرفان لبا حرف تقاربا هذي دوادان كلمة في كلمة كلمة دحد هذا أما وإن كلمة هل كلمة حرفان لبا حرف تقاربا هذي دوادان فيها كلمة دحد هذا فإدغام أبو عمر شدتان كيسة للقاف وشدها في الكاف قاف كهوري كاف كشدها سد يرزقكم أكل يرزقكم يا مش تلا حاله كي العادي لا بشر دبا مركا لو شرطنا وهذا كان إدغام كان وهذا إدغام كان وهذا كان إدغام القاف وفي الكاف لو شدها إذا ما قرتي وي قبله قبل القاف قاف كهربا متحرك وقع دعو متحرك حرف متحرك حرف أو حركيسان ودعو كاسو مبين حركتي سيعدهي وميم مينه ميم كاسو تخلل دحقلي بعد الكاف وقع دعو بعد الكاف كاف كدب دعو لبدا شردي با لو شردنا وإن قاف كحرف كهري ومحرف متحرك وياهي سيد يرزق قاف كذا محا كهري يرزق زق قدنا كورس قولي قد كيسن وعد يهي بالي وحرمت وحيال كلام كجرين كاف كنا سوما كاف كأسغن نقداشيس وإنه ميم جمع دعا وبعد الكاف ميم تخللا لبدا شرطي با لو شرطنا ميم تخلل دحقليو بين الكاف والواو دحقلي اما تخلل ابو عمر بلغار تخلل اخص ابو عمر ومارتا وغارير تخلل اي اخص بالشرطين لبدا شرطي كو خاصيه لبدا شرطي لو شرطنا وهذا كان هذا قاف كان وهذا اي ادغام قاف في الكاف إذا ما قرتي وي قبله قبل القاف قاف كهر متحرك حرف متحركة سو مبين حركة سنة متحرك نمي سنة عداي وقع ودعو وقع يا خبرك وميم ميمنه تخلل لقارن وميم ميمنه بعد الكاف وقع دعو بعد الكاف كاف كذب دعو يرزقكم وين ميم كدما قاف قرب كورين وحركيسين تخلل ولا خال نقضي ولا جون نقضي ابو عمر او كني ايو لا جوني يالي او انت كلا قاف كاف كل من كلا كما دارين اما تخلل اي اخص وخاص يالي ابو عمر وسوسي با لو وداي لبدان شرط كو خاص يالي مثالك وكو كيرزقكم وذلك كيرزقكم اي وحي لمده وي وكا شرطي لغا هلي قاف حركات حرف متحركه كوري كاف كان ميم وميم الجمع كوري وعلامه اذا واثقكم قاف اسكن اسدنا شروطي ولغا هلي marka qaafka kaafka lagu shida وعلامه اذا خلقكم سنه خلقكم والله خلقكم بيروا شعركم ميم توجيدي marka qaafka kaafka lagu shida واظهر اظهاري ميثاقكم اظهاري ونرزقك اظهاري ان جلا الامر امرك وعدادي ميثاقكم ينرزقك لبدا سؤال اظهارن لو مشداي ميثاقكم لديهم ما laga waayay qaafka xaraf xarakaysan waa inuu ka horeeyaa la rabay kama horeeyo
miithaa alif baa ka horey shardigii horaa laga waayey miimkii miim jamci waa la hayaa miithaaqakum narsuquka ayadana za'da qaafka harf ka hore mutaxarig wey laakiin kaafka waa inuu miim ka dambeeyaa la rabay shardigiyaa laga waaya isagana saa darteed labadan waa la idhaarinaa miithaaqakum narsuquka naxnu narsuquka waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha naxnu narsuquka labadanba markaa abu camar waa idhaarinaa waidqaamu ditaxriimi dallaqkunna waidqaamu shiditaan ditaxriimi suura taxriimka u saaxiibkaa shiditaankiisa dallaqa kunna weeyahe qol waxaad tidhaahdaa axaqu huwa asaga axaqu kii xaqnimo badan wey axaqu idqaamkii kii xaq badan weeyaan min alidhaar buu ka xaqnimo badan yahay wa uhqila waa la cusleeyey bita'niihi mu'anathnimii waljamciga lagu cusleeyey saa darteeda ayaa idhaarka keenay waxaa weeye dallaqa kunna waa suurat taxriim asaa rabbuhu in dallaqa kunna soo maheen kaas ma la idhaarinaa mise waa la idqaama suusi laba wej buu sheekha tilmaamay markaa imaam shaatibi tilmaamay idhaar iyo idqaam laakiin wuxuu yidhi idqaamka axaq ah oo idhaarna inuu qabo waa laga fahmaa idhaarka marka in la idhaariyo casaa rabbuhu in dallaqkunna lidhaa qaafka xarf mutaxariga inuu ka horreeya la shardinayo waa ka horreeya dalla laan baa ka horreeya laakiin shardigii gadaal baa laga waayo sidii narsuquka oo kale weeyaho kaafka inuu miimijamc ka dambeeyaa la rabay laakiin miimijamci booskiisa waxaa galay ta'niis oo nuunu niswa ah iyo weliba oo jamcana ah haddana marka ta'niiskaasi jamcaasaa cusleeyey booskii miimka galay saa darteed waa lagu idqaamo in lagu idqaamo ayaa axaq ah casaa rabbuhu in dallaqkunna waidqaamu ditaxriimi suuratu taxriim midka ku jira casaa rabbu in dallaqkunna weeye in la idqaamo dallaqkunna weeyahe qul waxaa tidhahdaa axaqu huwa idqaamkaas ayaa axaqo xaqnimo badan oo idhaarku ka maarata in la idhaariyo ka xaqnimo badan yahay ilaa idqaamka sidiisa asalkii takfiif buu ahaa marka haddaan la idqaamin wuxuu leey hiqal badan baa imaanahaya wauhqila lafdiga dallaqkunna waa la cusleeyey bita'niisi baa lagu cusleeyey oo nuunta dallaqkunna nuuntaas oo nuunu ta'niiska ah iyo waljamci jamc haddana wiru jamu ta'niis oo jamca wey nuunu niswihi oo jamc ahaa wey nuunu niswihi oo jamc ahaa wadallaqu damiirku waa damiiru jamc oo daalun calaa jamu ta'niis uu kutusahayo wey kaasaa lagu cusleeyey saa darteed marka casaa rabbuhu in dallaqkunna iyo in dallaqkunna labadaas baa ku jiraan waxaa xaq ah laakiin uu leeyahay in la idqaamo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam